dhegaystayaal sida laga yaabo intiinii ku taxnayd inaad weli xusuusan tihiin barnaamijyadii dhaqanka ee dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey aan halkan idinka maqashiiyey waxay ku saabsanaayeen baroordiiqda iyo maansada soomaalida tira ahaan waa ujeeddooyinka maansada midda ugu yar inta aan ka warqabana gacan kaliya faraheed ma dhamma iyada oo guud ahaan sidaas ah ayaa haddana waxa ugu sii yar gabayada ay maansayahanadu dumarka ugu baroordiiqeen inkastoo suugaamaha kale laga heli karo haddana lama hayo gabyaal soomaaliyeed oo hooyadii ama ayeydii u baroordiiqay ku walaashii u baroortayna haba sheegin inta ay maansada soomaalidu tiro la eg tahay waxaa la hayaa oo keliya laba maansayahan oo haweenkii ay qabeeneen markii ay geeriyoodeen gabayo ugu baroortay midi waa raagowgaas iyo gabaygiisii aan silsiladan ku bilaabay gabaygii kaafka uu ka qaadi jiray ee markuu libaaxu ka cunay ooridiisii faadumo cilmi xuseen uu ugu baroortay ninka kale waa gabyaal dhowaan iishay oo la odhan jiray cabdi maxamed awmagan cabdigalayaxna ku magac dheeraa dhaxalkii maanso ee gabyaagaas lagala haray ayaa waxaa ka mid a gabayo shiiqsi leh oo uu tiriye jeer ay ka dhimatay gabar markuu guursanayay ururintii yaradkeeda uu ku dhibtooday gadaal iyo markuu camal bartayse uu dhab u jeclaaday isaga oo ismahadiyey alla ilahay guur baa kuu hagaagaya ku fara adayg isaga oo isku bogaadinaya isaga oo aan cudur ku ogaynoo markii ugu dambaysay ay ladnayd ayay tiya alle sidaad cigaal u timid wuxuu ku warhelay toddobaad ka hor in lagu soo booday wax yar kadibna ay dhimatay markaas buu isula ekaaday boqor duubkii laga xayuubiyey tanna uu ku jiray nin laga budiyey nin cadowgiisii u jabayoo in lagu wiirsadaa ay gar tahay nin aan nolol iyo naala dambe u laabnayn wax walbase waxaa ugu xanuun badnaa isaga oo aan goobjoog u ahayn xajuubkeedana aan dul taagnayn in agagaarka laasaha higlood lagu aasay iyada oo garab dheera ayuu ka yara fogaaday reerihii uu martida u ahaa iyo golihii uu xalay ku baryey ilmo kolba soo dhaafaysa ayuu qarsanayaa waana gartiisoo wuxuu dhex joogaa bulsho nin raga oo ooyaya liidnimo u taqaan dumarka mooyee bulsho ay ilmadu laboodka ka xaaraan tahay si kastaba ha ahaatee cabbaar kadib baa halkuu fadhiyey waxaa ku soo gaaray rag iyaguna warka maqlayoo inay u tacsiyeeyaan ugu soo kacay markaasoo kale wixii la odhan jiray ayay ku yidhaahdeen cabdiyow iska samir sidaad meeshii loo badnaabay u kacdaye beddel khayr qaba allaha kaa siiyo iyo wax la mid a mid ragga ku jiray oo midhaa laga madoobeeyey meeshaas oo kale erayada ku habboon ayaa ku yidhi cabdow hadday quruxu lahayd iyo hadday qiimi lahaydba sidaad dhimatay dumarna iyada keliya ma ahoo waa shan qaboo shan sii daaye iska ilow hadalkaas cabdigalayax kama uu jawaabin nin aan maqlin ayuu iska dhigay aad buuse u dhibsaday yeelkeeda raggii tacsida ugu yimid ma uu hoojin halkii buu ugu mariyey gabay goloka fuul ah gabay baroordiiq ahoo afadii ka dhimatay uu ku ammaanayo ayna ka muuqato qof ahaan iyo qoys ahaanba geerideeda sida ay ugu naafan doonaan tabtii raaga intuu ku soo gebagabeeyo ayuu ku adkaysanayaa gar iyo mar inta xirata haddii meel lasoo wada tubo in aan laga helayn mid sidaad u dhiganta amase u soo dhowaata wuxuu yidhi dareenkii dhacay iyo hadalladii duhurka ii yeedhay dubaaqooyinkoodaa wadnuhu ii darooshamaye ninbase doonnidiisoo degta yuu dabin u naaftaaye duuddii higlaal lagu ogaa duniyadaydii damag weeye reerkii baryahan dowladda ahaaye duddadan dhisaayiyo ciddii dagalku weynaaday waa kaa docdeedii bannaan dahablamooddii qof dabeecad wacan bay ahayd dul iyo miisaane dayax bayga dhacay maalintii duugta loo qoday ee dadkoo idil durriyaddaannu nahay duudda nebi aadan haddii dooro lay dhaho intii dunida naag joogta wallee inaan da'deed laga helayn dumarka maanta
allaha u naxariistee siraad cigaal markay geeriyootay laba wiil bay gabyaaga u lahayd laba midka weyne uu markaa dhulka ka kacay kan kalena uu weli naaskeeda ku dhegganaa waa rajoobeen rajannimana kii ku soo koray baa garane waa marka ay dhallaanku silaca ka dhargaane ay ragaasaan mid kalgacal madaxa ugu salaaxda waa marka ay waayaan odaygu waa marka hawshii aabbannimo uu tii hooyanimo ku dari waayo ee aayo ama dumar xigta ahi ay nolosha rajada ka arrimiyaan waa marka qaarka ay hooyadu u nooshahay loo bajiyo lagana sarraysiiyo taasoo markay weynaadaan habdhaqankooda laga garan karo markuu haddaba dabin joogaba qaar ka mid ah tixihii uu gabyaagu siraad ugu barooran jiray ayay ka muuqataa geerida hooyadood ka sokow rajannimada carruurtu inay aad u gubaysay tixahaas midkood tuducyo aan ka soo goldooxay ayuu ku yidhi gobonnimo nin ragaxiluhu wowgada horreeyaane gudxul igu madoobaa markaan waayay gabadhii xidhiyuhuna way go'an yihiin guga kan maanta ah ee gacan aan ka mayn baan ka jabay garabka meeshaahe geerida siraad iiga daran duni gaddoonkeeda gurigoo madowye markuu gabanku ii muuqdo ama aan gamaastaan bartiyo gogoldhiggii waayo amaan soo garwaaqsado qoftaad geriga moodaysay hadba waan gubtahanyoonayaa gocasho meelbaas maalin kale sodcaal uu ku maqnaa isaga oo markaa ka soo laabtay ayuu arkay labada wiil kii yaraa oo dabnoolayska ag fadhiya wax yar oo uu ku durko ayaa ka xigtay inuu ku basbeelo waa keligiis bus iyo habaas miiran baa oogadiisii curdanka ahayd wada qariyey torow dumarkii uu kaga tegay meeye xaggee bay qabteen oo yaa og markaas buu hoosta ka ooy oo inta xaggiisa u degdegay bogga iyo beerka gashaday isaga oo boorkii ku yiilay aan dan iyo daarad ka lahayn tix gaabanoo isaga oo weli xambaarsan uu gabanka ugu tacsiyeynayo hooyadiisna uu ugu barooranayo ayaa waxaa ka mid ahaa siraad dhimatay surubow qoftii saayiqa ahayde middii dhabarka kugu soo siday ya seesha loo qodaye sancadaasna ee baar ahaa sababta maanta qof kastoo sarreeyaba wad baa sugaya maandhoowe ha yeeshee sursuuraha adduun subaxda waa meele inkastoo sabaankan innaga saxalku noo meeray seegseeg rag badan baa ku koray silic adduunkaahe dabadeedna sala iibsaday iyo sadarro daaraahe sibay noqon adduunyadu haddaan layna saahibine iska samir ilaahay mar buu saami noo celin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo